wiilkan gabar indhalaan oo masaakiin ayuu dhacay balse waxa ku dhacay mucjiso qof walba oo daawatay ay la yaabtay isla markaana cabir qaadasho ugu filan balse waxaan ka codsanayaa inaad u shirgelisid oo aad gaarsiidid asxaabtaada qaaliga iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed si ay ugu cibro qaataan oo aan mucjisada kale ugu dhicin sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad like saartid si aan u dareeno dadka jecel inaan soo gudbino muuqaalada noocan oo kale ah oo aan ugu talagalnay wacyigelinta bulshada page-kan waxaan soo gali doonaa qisooyin kale oo noocan oo kale ah oo aan ugu talagalnay inaan bulshada ku wacyigelino balse waxaan ka codsanaynaa inaad like saartid ama aad follow dhaad si aan ku dhaafin qisooyinka dambe mahadsanid qisooyinkan waa kuwa cibro qaadasho ay ku sugan tahay balse waxaan ugu talagalay in shacabka Soomaaliyeed aan ku wacyigelino waxaan ka codsanaynaa inaad nagala qayb qaadatid oo aad share gareysid si ay u gaarto dhammaan shacabka Soomaaliyeed mahadsanid moogtahay inay soo baxda daawo casri ah oo cudur walba oo ku haya daaweynaysa boqolaal kun oo qof oo isticmaashay daawada Ejazera ayaa si weyn uga caafimaaday in laga hormarin daawada Ejazera waxa qaatay oo ku caafimaaday dad 10 sano cudur kala duwan sariir la saarnay sidoo kale daawadan waa mid kaliya ee loogu talagalay dadka da'da ee cudurrada badan la nool haddii jirto ayeeyo ama awoowe ama hooyo qaba cudurrada badan oo kala duwan sida dhiigkarka sonkorka gaaska iyo waliba laf xanuunka daawadan waa mid kaliya ay ku bogsoon karaan ayaan laga hormarin daawadan casriga ah marka aad gadatid goobtaada shaqo ama gurigaaga ayaa lagu keenayaa ee kala xiriir WhatsApp-ka sidoo kale haddii aad isku aragto cudurka baabasiirka oo daawada Ejazera waa daawada kaliya ee daaweysa isla markaana in ka badan boqolaal qof oo wadan gudihiisa wax lagu qabo waayay ay ku bogsoodeen ayaan laga hormarin sidoo kale daawadan waa mid muhiim ah dumarka uur kale ee dhiglaantu ay ku dhacday iyo sidoo kale waliba kuwa ay dhalmada ku xiran tahay ayaan laga hormarin haddii aad ku fikiraysay xagee daawo casri ah ka heshaa Hindi ayaad aadaamsay Jarmalka haddaba daawadan casriga ah marka aad gadatid goobtaada shaqo ama gurigaaga ayaa lagu keenayaa ee kala xiriir WhatsApp-ka oo hel daawo tayo sare leh isla markaana cudurrada ku haya oo dhan aad kaga bogsootid mahadsanid xaguu ku yaala xafiiska lagu iibsado xubnaha jirka bini'aadamka yaase ka dambeeya caruurta la xado kaliya maahan ama beerka ama xubnaha kale oo qofka bini'aadamka xitaa makanka haweenka ayay kooxdan qowleysatada ee jirka bini'aadamka ganacsada ka shaqeysta daawada qaaliga waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka share gareysid oo si dhayl kula noqon si u badbaadaan caruurteen oo ay dhammaan dadka waalidiinta ee Soomaaliyeed ay u ogaadaan kooxdan ma ka maqan yihiin caruur ka luntay ma aragtay ilmo tiro badan oo maalin kasta la baafinayo waxa soo baxay koox qowleysata oo ka ganacsada caruurta yaryarka oo xada isla markaana gata xubnahooda waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad share gareysid si uu u gaaro qof walba oo Soomaaliya oo uga digtoonaado isla markaana ay caruurteen u badbaadaan maalin kasta waxaan baafinaa ku dhawaad 15 ilaa 20 caruur ah waxaana la soo xiriira hooyooyin walwalsan haddaba maxaa qaldan waa su'aal maankeyga ka buuxaysa dad badanna ay isweydiinayaan haddii aad muuqaalka daawatay isla markaana aad share gareysay waan ku mahad celinaynaa sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad page-kan wax maqriyay TV aad follow gareysid oo aad like saartid waad ku mahadsan tahay waxa hubaala haddii aan taxadar badan muujino isla markaana aan dareerno dhibaatada ay noo wadaan kooxdan xadaya ilmaha isla markaana safarsanaya oo gadanaya xubnaha jirkooda inaynu ku hortagi karno bal ila dhageyso haweeney Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed ka dhaadhicinayso inay kala shaqeyso iibsashada abayaha xarumo waan leenahay gobol kasta oo Puntland kamidana waan ku leenahay gobollo badan baan ku leenahay sida gobollada Puntland oo kale Somaliland oo kale in Koonfur Galbeed oo kale Jubbaland Soomaaliya waxaan ka wada calaashan Soomaaliya ka wada federaalka oo kale meelo badan baan ku leenahay Dubai baan ku leenahay adoo caalamka oo dhan oo ku leenahay sida Ethiopia meelaha noogu dhow oo waxyaalaha mataqaan qaliimada adag noogu fududaadaan waa Ethiopia ilaa Nairobi oo kale soo dhaqaatiir caalamka waxa jooga khatar